marka hore Allah ayaa mahad oo dhan iska leh marka xigtana waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha mudanayaasha muhiimka u ah ee ay ugu horeeyaan wasiirada xildhibaanada mas'uuliyiinta kale ee hay'adda dawladda waxaa sidoo kale u mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda oo ugu horeeyo hormuud u yahay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo shaqaalaha ee wasaaradda runtii maanta waa maalin weyn waa maalintii ka hortagga shaqaaleynta carruurta ee 12 Juun ee sanad kasta ka dhaca adduunka mudanayaal iyo marwooyin anigoo wakiil ka ah dawladda federaalka ah kuna hadlahaya magaca wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa sharaf weyn ii ah in aan ka soo qaybgalayaasha iyo shacabka Soomaaliyeed xasuusiyo kuna baraarujiyo maalinta ka hortagga shaqaaleynta carruurta ee 12 Juun si loo shaqeeyaha gudaha dalka ay ku jiraan hay'adaha dawladda Soomaaliya shirkadaha gaarka loo leeyahay hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha iyo cid kasta oo loo shaqeeyo ah sidii ay uga foojignaan lahaayeen ka faa'iideysiga carruurta aan gaarin da'da shaqada ee laga mamnuucay xeerka shaqada Soomaaliyeed iyo qaramada midoobay ee caalamiga ah shaqaaleysiinta carruurta oo Soomaaliya ansixisay si ay qayb uga noqdaan fulinta iyo ku dhaqanka qawaaniinta lagu ilaalinayo carruurta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo mas'uul ka ah dejinta xeerka shaqo iyo shaqaalaha weynaha Soomaaliyeed oo maanka ku haya shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta guud ahaan dalka waxay ka digaysaa in shaqaale ahaan loo qaato carruurta da'doodu ay ka yar tahay 18 sano waxaa aad aan uga xumahay in ururada xaq jirka ah ee ka jira Soomaaliya magac kastaba ha lahaadeen loo adeegsanayo in carruurta da'da yar loo adeegsado in la maran habaabiyo ayagoo laga faa'iideysanayo da'da yar oo aqligoodu uusan qaangaar noqonin sidaa la aligeed waxaan ka digaynaa oo mar kasta ku celinaynaa in dadka ku hawlan arrimaha ayaga aysan marnaba isku dayin in carruurta Soomaaliyeed ay maran habaabiyaan runtii sidaad ula socotaan wasiirada iga horeeyay wasiir kasta wuxuu ka hadlayay meesha kaga aadan annaguna waxaan ahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo arrintan saldhig u ah maxaa yeelay haddii qofkii la shaqaaleynayo ama askari ha la qoro ama shaqaale ha noqdo wuxuu soo maraya ee kontaroolaya ogaanaya waa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sidaasay ugu noqotay gundhigii iyo maxaan ku dhahdaayay meeshii xogta ku soo arooreysay runtii sidii horeba loo sheegay waddankeena dagaal baa ka dhacay dagaalka ka dhacayna wuxuu sababay waxyaabo badan ma aha oo kaliya inay burbureen daarihii waxaa burburay qalbiga dadka waxaa burburay institutionadii ka jiray waxaa burburay wax kasta oo runtii aan isleenahay wadamada hadda aan rabnay aan la jaan qaadno sharcigan hadda aan ka hadlayno in aanu kala mid noqono dib dhac lagu riday carruurtu way ogtihiin oo sida uu sheegay wasiirka cadaaladda waa ammaano wey ilaah baan ugu ammaanaystay markii uu leeyahay carruurtani ma qaangaadhin oo dunuubtii maxaan ku dhahdaay ay lahaayeen baa laga yaabaa in allaba ka cafiyo oo leeyahay may soo gaadhin xilligii ama la leeyahay waxaysan awood u lahayn in loo diro ma ah taa macnaheedu waxaa weeye in waajib naga saaran yahay ilmo aan xoog iskaga kaa difaaci karin aqli aan iskaga kaa celin karin waxaad ku qasbaysa aan diidi karin haddii waxa weeye waxaan is leeyahay waa arrin runtii meesha ugu liidataa ee qof bini aadan ah loo geysta weeye marka qofku awooddiisu intay dhan tahay sidaa la aligeed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa ka go-an mar kasta annagoo la shaqeynayna wasaaradaha dhigaanada ah ee runtii aad maqlayseen howlaha kaga aadanaa inaan mar kasta ku baraarujinno kana feejignaano in la shaqaaleeyo carruurta da'da yar ayadoo loo adeegsanayo ama shaqada raayidka ha noqoto ama ta ciidamadaba ha noqoto wasiir xasan
runtii waa wasiirkii cadaaladda ee ka horreeyey wasiir jaamac wax badanna waa ka soo shaqeeyey intaa waxaa dheer haddana abukaato weeyo siduu wasiirku sheegay waxaan sheegi lahaynba horey buu nooga qaato xafladda saadaan moodayo isaga waa dib baan u dhigi lahaa marka waxaan sheegayna waa nagala hormaray sida xaqiiqada ay tahay waana wasiirkii gaashaandhiga oo meelaha hadda ugu badan ee laisku haysto ee caruurta lagu dagaalamayo ama waa meelaha la isdhihi karo runtii waa ku dagami karaana wasiir muhiim uu noogu yahay waa uu noo joogaa runtii waxaan mar labaad aan idinka mahad celinayaa sida sharafta badan ee wasiirada oo waqtigooda runtii qaaliga ah shaqada ay u ajiibeen inay ka soo qayb galaan xafladan iyo dhammaan shaqaalaha halkan fadhiya agaasimayaasha iyo xildhibaanada federaalka iyo weliba xildhibaano iyo wasiiro heer maamul goboleedna waa fadhiyaan runtii waxaan leenahay waa bilow laakiin waajib baa naga saaran qof kasta oo muwaadin oo Soomaali waxa maanta aan ka hadlayno inuu ka dhameeyo waa arrin qof kasta albaabkiisa garaacaysa waa arrin ilmahaaga qosaysa weeye ilmaha adeerka u tahay qoseeyo weeye ilmaha abtiga u tahay qoseeyo weeye ilmihii Soomaaliyeed waajib ka saarnaa qaranka Soomaaliyeed marka uu adeegaysana waajib baa ka saaran runtii waxaan leeyahay waa arrin guula maanta waxaan u dabaaldegaynaa sida aad ka aragtaa halka ku qoran la dagaalanka shaqaaleynta caruurta oo maanta adduunka oo dhan malaayiin laga xusahayo innagana waxaa farxad noo ah inay noqoto 30 sano kadib markii ugu horreysay ee aan u dabaaldegno balse weli faano la farkaba qodna oo shuruucdeedii iyo habraaceedii sida wasiirada sheegayeen qaarna golaha wasiirada waa mareen qaarna Ilaahay yiraahdo baarlamaanka mari doonaan laakiin waxay noqonaysaa iftiin noo baxay oo runtii aan haysano waanan runtii mar labaad baan niga mahad celinayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin